السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee si toos ah igala socda barteeda Facebook iyo waliba YouTube-kayga waan ka xumahay inaan soo daahay odaga habeenka jimcada salax u tuurta oo soo almiiteynayay laakiin caawa lagama seexan karo qodobada rasmiga ah oo aadan ogeyn ayaan doonayaa 2 daqiiqo inaan kaaga dabgeeyo wax 3 daqiiqo ka yar iyo 3 qodob ugu horreyn allahumma salli ala sayidina maxamed ku salli rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam waaye shirkii kismaayo waxaa la isku fahmi waayey oo lagu kala tegay hoggaanka rasmiga ee golaha mustaqbalka u yeelanayo aamin ama ha aaminin raggii muqdisho ka wada duulay ee siyaasiyiinta ahaa yacni mustaqbalka iyo mataqaana aayaha soomaaliya ka talinteedii looga fadhiyay maadaama madaxweynaha hadda xilka xilada kasii dhamaa siyaasaddan ay cakiran tahay iyagii laftirkooda ismu caaraday aamin ama ha aaminin waa kaa daba keena aniga ayagii asbu caaraday hebel hoggaan ma noqonaa iyo hebel hoggaan ma noqonaa ayaa ka dhacday haddaan rabtidna toosan kugu sheegaa laakiin hadda ma ah waay aan ka gudubno laakiin warkaas waa xaqiiq waxaana ka soo xigtay ila wareed lagu kalsoon yahay ka soo xigtay waay qodobka labaad u gulbiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa Itoobiya aaday safar degdeg ah ma garan kartaa sababta xaaladda taagan maxaa ku soo beegay waxaan helayaa warar sugan oo iiga imaanaya Addis Ababa in madaxweynaha Itoobiya uu ku codsado cudud military maadaama nimankii Arsenal ay soo akubaareynayaan cudud military ku codsada sidoo kale in uu soo fargeliyo dawladaha gobolka oo si toos ah u garab istaagay arinta Kismaayo laakiin warar kale oo ayadana aan helaya xaqiijinayo in Ethiopia ay ka careysantaa xilka qaadistii Sambaloolsha Addis Ababa kaga horeeyay waxayna Ethiopia ku riixaysaa leeyahay in Sambaloolsha la soo celiyo warkayga meel ku sii qor hadda waa ka gudbaynaa qodobka saddexaad u gudbiya sida diblomaasiyiin reer galbeed ah ugu warameen wargeyska Times of Israel yiraahdo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa laga codsaday in uu ciidamo u diro Gaza